deegaanka masaajid cali guduud oo dhawaan ay la wareegeen ciidanka xoogga dalka iyo dadka deegaanka ayaa waxaa soo gaaray mas'uuliyiin ka socday dowladda dhexe oo isugu jira xildhibaano, saraakiil, odayaal dhaqameed iyo ururka haweenka. waxaa ku soo dhaweeyay goobta guddigaasi gudoomiyaha gobolka Shabeellada Dhexe mudane Axmed Mayar Makaraan iyo saraakiil hore ugu sugnaa deegaanka masaajid cali guduud. guddiga ka socday dowladda federaalka Soomaaliya ayaa soo gaarsiiyay saraakiisha iyo dadka deegaanka deeqo isugu jiro raashin, xoolo nool iyo agabka ciidanka. waxaa goobta ka hadlay Jenaraal Cabdiraxmaan Tuuryare iyo Jenaraal Ibraahim Yuusuf kuwaas oo hogaaminaya howlgalka ka dhanka ah kooxda argagixisada ee Al-Shabaab ee gobolka Shabeellada Dhexe. meeshaan ciidamo waxaa jooga kumanaan ah marka laga reebo ciidamada xoogga dadka macawisleyda ah oo birmad qaran ciidamada deegaanku waa dad 3,000 dhaafaya 200 oo gaari ka badan ku hubaysan hal maraad 5 dagaal qaadi kartaan horta dagaalada hal mar alla wada qaadayo 5 meel lagu qaadi karaa inay nimanka idin fadhiyaan meeshaan sax ma ahan waxa la rabaa in la soo qabto ciidamada qalabku sida waxay noo sheegeen 200 ku dhawaad inay halkaan ugu dhimatay haddana ay sii dhimanayaan magaaladan 2 maalin waxa laga guraayay raqdooda waa uraysa magaaladu soo sida ma boqayntii iyo ciidamadu waxay dileen magaalada dhamaa uraysa soo ma amiiradii baa laga dilay soo ma meeshaan ayaga nagu sugay soo ma adeer Cabdullaahi Geedi boqorku wuxuu yiri guryaheena nagu sugina haddaan nagu sugtaana waxa naga heshaana leedin soo ma marka waxay naga heleen waa heleen soo ma waxa la rabaa marka dadka loo yimid oo deegaan waxaa kaloo goobta hadal ka jeediyay xildhibaano ka socday labada aqal oo ka mid ahaa guddiga soo gaaray deegaanka masaajid cali guduud oo kala ah senator Maxamed Axmed Afcadey iyo xildhibaan Cabdirasaaq Xusul ayagoo ka mahad celiyay deeqda ayay goobta kula dardaarmeen ciidanka iyo dadka deegaanka. horta dhammaan dadka dhan waa salaama meesha iskugu yimiday haday xildhibaan yihiin haday saraakiil yihiin haday yihiin hooyooyinka iyo dhammaan ciidamada intaas ka bacdi dadkeena wafdiga ay xamar nooga yimiday ee sharafta leh ee taakulaynta ciidanka noo keenay haday noqdaan xoolo iyo haday noqdaan raashin iyo haday noqdaan agab ciidan iyo haday noqdaan caafimaad waa kala wareegnay annaguna waxaan ku wareeji doonaa saraakiisha ciidanka oo mataqaanaa ku jira howlgalka dadka deegaankan u dhashay hadda aan joogno iyo kuwa ku xigaba waqti waa la siiyey saacadan laga bilaabo waqtigu waa idinku socdaa isu soo dhiiba naftiina haligina talaan idin soo jeedina waqtigu waa dhamaaday ninba nimow yaqaana qofba qofow yaqaana ciidanka kamida waqtigu waa idinku dhamaaday hadhow laga yeeli maayo adigoo dagaal ku jirta inaa isu soo dhiib waxaan u mahad celinaynaa Allah subhanahu wa ta'ala guushan iyada ah garabka noo suray maanta aan joogno deegaanka masaajid cali guduud oo muddo dheer cadowga argagixisada ah Al-Shabaab ay ka talinayeen ilaahay fadligiis gacanteena ay ku jirtaa maanta deegaanada kale ee dhimanna gacanteena ay soo galayaan waa go'aansanay waana qaadanay fariintii madaxweynaha fulinteediina waa bilaabatay waxaa la rabaa marka go'aankaas aan qaadanay wuxuu u baahan yahay fulintiisa socoto in lagu sabro oon dhax looga tegin oo aan howlgalkaan la milmilaynin dibna aan loo laabanin ilaa geyiga Soomaaliyeed oo dhan laga xureeyo